waay bismillah waa qaybtii ugu dambeysay su-aalihii yaraa ee nooga harsanaa Somaliland National Examination su-aasha saddexaad ayaynu ka bilaabeynaa. Su-aashan waxayna leedahay the quantity of heat supplied by a heater of power P in a period of time T is given by Q equal power times time. xajmiga heatka ee la siinayo heater powerkiisu yahay B muddo ama waqti time T ah wuxuu noqonayaa Q equal power times time. Use the equation to calculate the quantity of heat supplied by a heater of power 500 watt in 5 minutes. Isticmaal selectaasi si aad u xisaabiso quantity-ga heatka ama xaddiga heatka la siinayo heaterka powerkiisu yahay 500 watt muddo 5 minutes. طبعا waxa la inaga doonayaa calculate quantity of heat weeye inaan quantity of heat raadino. quantity of heat qaacidada ku raadinaysana waa lagu siiyo waa power times 10 baa lagu yiri. Marka laba shardoon ilaaliyo si uu jawaabtaadu joule u noqoto powerkaagu waa inuu ahaada watt timekaaguna waa inuu second ahaada. powerka hadda waa ku yahay waa 500 watt laakiin timekaaga minute kaas aad uga dhigto second isagana waa halkii minute waa 60 second 60 waa inaad ku sii dhufataa. Marka qaacidada isticmaal wax tira Q waa power times time powerku waa 500 timekaagina waa 5 minute laakiin 60 ku dhufo saad second uga dhigto markaad isku wada dhufato 150 kun oo joule halka waxa kaaga soo baxaya 150 kilo joule. su-aasha qaybteeda labaad waxa lagu yiri unit of power is watt. halbeega powerku waa watt. express watt in an equivalent unit. bal watt waxaad u qortaa halbeeg kale oo u dhigma. jawaabta waxay noqonaysaa joule per second. the why wattku waa halbeegii powerkuna waa energy divided by time. marka halbeegii energy oo loo qaybay halbeegii time-ka waa inuu noqdaa. su-aasha bida explain in brief zero kooban u sharax how a human body cools down itself by sweating. sida jirka bini'aadmigu isu qaboojiyo marka uu dhidido. okay jawaabtu waxay noqonaysaa the sweat evaporates as it takes latent heat from the body. dhididka ayaa uumi baxa isagoo inaga qaata latent heat jirka ka qaadanaya so the body cools down sidaa daraadeed jirkiina wuu qaboobaya. macnaheedu markaa waxay noqonaysaa dhididku wuxuu uumi baxaa marka uu jirkeena ka qaato latent heat of vaporization. latent heat of vaporization naga marka la inaga qaadana jirkeeni waa qaboobaya. su-aasha afraad most of the mass of an atom is contained in the nucleus. masska atomka intiisa badan waxay ku jirtaa buuda atomka. what particles are available in the nucleus? waa maxay nooca particleska ee laga helo buuda uryuhu? jawaabtu waxa weeye protons iyo neutrons. su-aasha bideeda the figure illustrates the effect of electric field on a nuclear radiations. shaxankan wuxuu inoo muujinayaa saameynta uu ku leeyahay electric fieldku nuclear radiationska. write down the name of the radiation represented by. waxaad qortaa magaca radiationka ay u taagan yihiin x iyo y iyo z. waa saddexdan halkan inoo yaala. way x waxay u taagan tahay beta sababtoo ah beta markeeda horeba waa minus marka minuskana pluska jiidanaya. y-na waxay u taagan tahay gamma sababtoo ah iyadu toos bay u soconaysaa. z-na waxay u taagan tahay alpha iyadaaba plus ahayd markaa minuska ayaa jiidanaya. su-aasha sida why radiation y is not deflected. radiation y-gaasi maxaa loo qalloocin waayey? sababta loo qalloocin waayo waxa weeye it has no charge male. radiation y waa gamma markaa charge male markaa saameyn kuma laha electric field. d-da give any two positive applications of radioactivity. waxaad sheegtaa laba application oo positive ah oo uu leeyahay radioactivity. positive kuma aha plus iyo minuska laga hadli maayo laakiin waxa laga wadaa faa'iido leh. wixii faa'iido lehna waa positive wixii aan faa'iido lahayna waa negative. marka laba application oo faa'iido la laga doonayaa way badan yihiin markaa laban ka soo qaadaynaa. radiotherapy. radiotherapy waa isku daaweynta radioactivity-ga sida isticmaalka gamma rays si loogu dilo cancer cells-ka oo kale waa radiotherapy. laba waa radio dating ku baaritaanka taariikhaha qadiimiga ah sida carbon 14 oo kale marka la adeegsanayo waa positive application. way su-aasha shanaad a wire of 20 cm long is moved upwards at a speed of 8 meters per second at right angles to a magnetic field of strength 2.5 Tesla. the field goes from north to south. wire 20 cm ee dhererkiisu ayaa kor u dhaqaaqay isagoo ku soconaya xawaare 8 meters per second isla markaana xagal quma la sameynaya magnetic field awoodiisu ay tahay 2.5 Tesla. magnetic field-kaasi waxay ka imanaysaa north to south sida shaxankan kaaga muuqda. wire-ku halkan u dhex yaala waa goobadan ina soo eegaysa marka kor buu u socdaa. magnetic field-kuna waa from north to south
wire-ku wuxuu ku socdaa xawaaraha 8 meter per second. haddaba eeda waxaa lagu yidhi calculate the size of the EMF induced in the wire. xisaabi size-ka electromotive force-ka wire-ka lagu saaqay. waxaynu garanaynaa wire-ku mar haddii uu dhaqaaq sameeyo oo uu dhex soconayo magnetic field, wire-kaasi in current ama EMF lagu induce garaynayo ama lagu saaqayo. marka size-ka EMF-ta ee lagu saaqaya ayaa laynaga doonayaa. ardayow saa taa u xisaabiso kaagama baahna mutahin, laakiin waxay kaaga baahan tahay inaad qaacidadii lagu helayay aad xifdisan tahay. haddaanad qaacidada xifdisanin waxaa laga yaabaa inaad halkaa kaga istaagto. qaacidadaas waxay odhanaysaa EMF waxaa lagu helaa BLV. B waa magnetic field strength oo waa 2.5 Tesla. L-na waa lengthka wire-ka oo waa 20 centimeter. marka meter baa loo rogan doonaayo waxay noqon doontaa 0.2 meter. marnaba ku shaqayn centimeter. V-na waa speedka wire-ka uu ku socdo waa 8 meter per second. marka qaacidadu sayna farso saddexdaba waa la isku dhufanayaa. waa magnetic field strength oo 2.5 lengthki wire-ku 0.2 meter iyo velocity oo 8 meter per second. saa waxayna ugu soo baxaya 4 volt. EMF waa voltage wuxuu waa 4 volt. su-aasha B-deeda waxaa lagu yidhi in the diagram shaxanka dhexdiisa illustrate ku buuji the direction of the induced current. jihada induced current-ka waliba adigoo isticmaal baa lagu yidhi calaamadahan oo haddii uu into the page ayna cross ka dhig, haddii uu out of the page ayna dhibic yar ka dhig. marka jawaabta halkan aan doonaya in lagu qoro waa dhici kartaa inay ardayda bar halkan ku qoraan oo iyagoo jawaabtan ardaydii dee hore imtixaanka kale waabay ku qoreen qaarkood oo waa sax, laakiin sida kaga sii habboon in the diagram baa lagu yidhi inaad instructionka su-aasha raacda ayaa ku yaro fiican tahay. shaxanka dhexdiisa baa lagu yidhi waa kuwan calaamad ahaan baa lagu siinayay. marka inaad shaxanka ku muujiso ayaa la doonayaa. haddaba su-aasha saynu u garanaa direction of the induced current waxaa la isticmaalayaa Filamengis right hand rule. marka 10 electromagnetic induction ka oo aan hore uga diyaarinay baa jira, waad daawan kartaan oo dib aad ugu noqon kartaan. direction kaasi marka wuxuu noqonayaa cross oo macnaheedu yahay into the page. markaad Filamengis right hand rule isticmaasho. su-aasha sida suggest two ways of increasing the size of the induced EMF. sheeg laba habo lagu kordhin karo size-ka ama qiyaasta induced EMF-ka. induced EMF waxaa lagu kordhin karaa waxyaabaha qaacidada imika halkan taala soo BLV maaha. EMF waxaa lagu helaa BLV battery. saddexdan qodob waa saddexda xukumo EMF-ka. saddexda kaad kordhisaaba EMF-ka uu kordhinaya. marka waxaad oran kartaa B oo taagan magnetic field strength-ka, L oo lengthka wire-ka wire dheer in la isticmaalo, V oo speed oo wire-ka in loo dhaqaajiyo si xawliya ama fast ugu dhaqaaqo. saddexda qodob baad ka soo qaadan kartaa. marka jawaabta kooban waxaan leenahay ko moving the wire fast, wire-ka oo loo dhaqaajiyo si dheeraynaysa waa markaynu speed ka qaadano. laba using strong magnet in la isticmaalo birlab xoogan waa markaynu BD qaadano ama magnetic field strength. su-aasha D waxaa la yidhi the arrangement produces electricity from motion. shaxankeennii ama sawirkeenna aynu kasoo sheekeynay wuxuu soo saaraya electricity ayuu ka dhalinayaa dhaqaaq. This is an example of arrintan waxay tusaale u tahay motor, generator, transformer. ka saxda hortiisa ayaa tig siinaysaa ama sax siinaysaa. jawaabtu markaa waa generator. dab oo dhalinaya baa dil guri waa generator. su-aasha lixaad sound is a form of energy produced by a vibrating body. sound waa nooc ka mid ah tamaraha oo uu soo saaro walax gariir samaynaysa. haddaba sound consists of compressions and rarefaction. sound waxay ka kooban tahay compressions oo ah meelo particles ay isku dhow yihiin iyo rarefaction oo ah meelo particles ay yara kala duwan yihiin. Because of this property, astaantan daraadeed soundku waa longitudinal wave waa transverse wave. wax hataa mararka qaarkood instructionka lagu siinayo uma baahnidba inta yar dambuunba muhiima. waxa weeye waa ardaygu inuu xifdisanyahay ama uu iska garanayo soundku inuu yahay longitudinal wave. marka halkaas aad saxaysaa aad tigsinaysaa ku beegan longitudinal wave-ka. B. Sound needs material medium for propagation. Soundku wuxuu u baahan yahay material medium ama medium ka kooban particles si loo baahiyo. This shows that sound is electromagnetic wave, mechanical wave. arrintan waxay noo muujinaysaa soundku ama waa electromagnetic wave ama waa mechanical wave. macnaheedu jawaabteedu waa maxay? waa mechanical wave. soundku kuma jiro groupkii electromagnetic waves kala isku oranayay. su-aashan sida
waxa la yidhi spreenaduna waxay muujiyaan laba nooc oo waveska ah longitudinal iyo transverse way muujiyaan haddaba adigoo spreen shaxanka eegaya label C for compression C baad ayaad ku calaamadinaysaa meesha la isku yara urjiyo compression waa isku urjis meesha particles isku soo yara durkeen and R for rarefaction R na waxaad ku calaamadinaysaa meesha particles ku yara kala durkeen sida waadaxa ah spreenka waaba kaaga muuqataaba marka halkana R waa intana waa compression oo isku particles kiba isku dhawaaday intana waa rarefaction oo waa R intana waa compression su'aasha D-da ships use echo to detect the depth of the water underneath maraakiibtu waxay isticmaalaan echo si ay u ogaadaan gunta biyaha ka hooseeya ship send sound pulses are received an echo after 1.2 seconds marka baa wuxuu diray sound pulses mawjado jabaqa waxaanu helay echo ama deeyaankii uu helay 1.2 second dabadeed calculate the depth of the sea xisaabi gunta badda if the speed of sound in water is 1500 meter haddii xawaaraha jabaqdu yahay 1500 meter marka labada shay meesha aan ku haysanaa waxa weeyaan echo time ka waxa loo yaqaano iyo speed marka givenkii baynu horta qaadanaynaa speedka waa 1500 meter per second echo time kina 1.2 second depthki gunti ama distanceki waa la inaga rabaa marka qaacida jirta u gaara qaacida kasta lama isticmaalo marka echo ga la isticmaalayo distanceka waxaad ku helaysaa speed times time divided by 2 baad oranaysaa marka speed kina waa 1500 time kina 1.2 labana wada qaybinaysaa inta marka dhamaystirto 900 meter buu ku soo baxaya su'aasha toddobaad wuxuu inoo odhanaysaa waana su'aasha imtixaanka u dambaysa the figure shows a system of radio transmitter shaxankana wuxuu inoo muujinayaa radio transmitter study it and then answer the following questions daraasee kadibna su'aalaha la socda ka jawaab daraasee marka lagu leeyahay in yar isha ku qabo adoon xagga su'aasha u boodeen ama jawaabaha maxaad halkan ku haysaa oscillator muxuu soo saaray unmodulated radio wave radio waves buu soo saaraya modulatorkii muuqaalka sida kaaga muuqda halkan kale maxaa kaaga microphone ba ku yaala muxuu soo saaraya AF ama audio frequency iyo radio frequency oo ayuu isku daraya modulatorkii radio frequency amplifier ba halkan ku yaala waxa halkan ku yaala transmitter marka si u yara eegto xoogaa jawaabaha bilow ama su'aalaha xagga su'aalaha u yara noqo produces audio frequency signal keeba soo saara audio frequency signal waka AF halka ay kugu hoos qorantay marka jawaabtu waa microphone B produces carrier waves signal carrier waves ama radio frequency signal ka soo saarna wata kugu hoos qoranba waa oscillator C sends out radio waves wuxuu diraa radio waveska signal la diray halka ma kaaga muuqda transmitter kun baa wax diraa marka waa jawaabtu waa transmitting area D mixes AF signal into RF carrier kalabada isku daraya AF ka iyo RF kan ka isku daraya waa kee modulator marka waa modulatorka ida increases the energy of the modulated wave ki modulatorka lagu sameeyay oo kana ka energy-giisa kordhinaya waa radio frequency amplifier ama simple amplifier na wada oran kartaa halkaas ayuu ku dheeyahay imtixaankii 2019 wixii aad tala ku darsanayso iyo wixii aad saxayso waa muhiim. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.